أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أخيارta sharafta leh asxaabta waan idin salaamay dhammaantiin meel walba oo aad igala socotaan ama aad iga daawaneysaan. maasha allah, maanta waxaan bilaabeynaa casharo cusub ku saabsan sida u baranayso luqadda Faransiiska. insha allah waan wada arkaynaa. insha allah luqadda Faransiiska runtii ma ahan maxay ahaydey luqad aan la baran karin. luqad maxay ahaydey waa luqad ka mid ah luqadaha haddii laisku taxalluujiyo si wanaagsan loo baran karo. waa luqad ka mid ah luqadaha looga hadlo maxay ahaydey qaramada midoobay. teeda kale wadano badan oo Afrikaana ama qaaradda Afrika ku yaala oo aad u tiro badan ayaa ku hadla. waana muhiim in la iska barto laguna hadlo afkan Faransiiska. teeda kale waxaa weeye markaan alxamdulillah waxaan bilowno luqadda. halkan waxaan kusoo qoray waad akhrisanaysiinba. ma adko barashada luqaddan. waxay u baahantahay oo keliyaatay maxay ahaydey dadaal iyo adkeysi samir inta oo keliyaatay ma u baahantahay. waa la kulmi kartaa qabado iskara adag, laakiin lagama caajiso, lagama nadaalo. waa lagu sii taagnaadaa, waa la sii socdaa. ma sii badinayno caabo maadaama ay bilow ay tahay. waxaan sameynaynaa oo keliya sidii bilowga casharka loogu socday ama qorshihii casharka aan u sii wadi lahayn ayaan u macaawa sameynaynaa. bilowgan waxa aan tusayaa waxa weeyaan asaaska luqaddan barashadeeda. asaasna wuxuu ah waa sidaad arkaysiinba grammar iyo conjugation. haddaba grammarka waan u yar dambaysiinaynaa, laakiin waxaa lagama maarmaan ah in luqadda Faransiiska aad akhriskeyga si wanaagsan aad u taqaantid si ood ila jaan qaadid ama soo casharkan ay kugu fududaadaan. haddaba waxaan ku horeynaynaa conjugation ayaan ku horeynaynaa. conjugationka halka aan ku qoray intaa baan ku horeynaynaa. grammarka aan ku xigsiinaynaa insha allahu tacaala, laakiin maanta ahaan waxaan conjugation aan ku horeyn. conjugationku dhinaca luqadda Faransiiska waxaa loo kala saaraa 3 qaybood ayaa loo kala saaraa. verbyada pluto igala lahaada. conjugation waa casharka guud ahaaneed, laakiin verbyuu leeyahay, waqtiyuu leeyahay, haddana ton la yiraahdo Faransiis waan isoo qori doonaa. laakiin verbyadu waxay u kala baxaan 3 qaybood loo kala baxaan sida arkaysiinba saddexda waxbad baan idin ku macnin doonaa insha allah. halkan waxa ku qoran commençons par le premier groupe. groupka horeysa ku bilowno. groupka horeysa waa groupka labaad groupka saddexaadna waa saddexda qaybood ay u kala baxaan ama loo kala qaybiyo weeyaan. insha allahu tacaala waxaan ku bilaabanaa baan ku bilaabanaa. waa premier group weeyaan. deuxième groupna saan sheegay, troisième groupna saas oo kale, laakiin haddaan ku bilowno waa maxay verbyada verbyada maxaana lagu gartaa. waxaa lagu gartaa ta halkeebay martaa. waxay martaa halka u dambeysa ee verbiga martaa. waan idin sheegi doonaa insha allahu tacaala. halkan waan igu sharaxay. premier groupka waxa weeyaan deuxième groupka waxa weeyaan premier groupka waa saa hore aan idin sheegay. deuxième groupkana waa troisième groupkana waa noo soo socdaa, laakiin premier groupka in yar ay sartu taagno. premier groupka waa parle oo kale, waa hadalka ama verbi hadal ku saabsan oo kale weeyaan. marka waxa ugu dambeysa waa ugu dambeysa waa muhiimadeena. premier groupka waa intaas taas lagu qarnaa. tanna waa deuxième groupka finir dhamaashaha ama waxa marka wax la dhameynayo verbigu saas ku saabsan yahay. marka kraniga dhigo ama niyar jardiyo ugu dambeysa ayaa ka dhigaysa verbiga deuxième group. premier groupkana waa saas afarta verbi waxay ka dhigan tahay exactira yani wixii la mid ah oo kale. wixii ugu dambeysa dhan waxaa la yiraahdaa premier group. deuxième groupkana waxa weeyaan arkaysa waan maxbad baan idin ku sheegi doonaa maxay ahayd. waxaan sheegi doonaa waqtiyada sida loo conjugayo iyo sida loogu hadlaba insha allah taala. troisième groupka waxaa lagu gartaa baan nigeri premier groupka baa horeysay, ku xigtay
maanta waa ikhda horse iid ayaa ku xigta insha allah waa kamde maxaan ku idhaahdaa sidan oo kale maxay ahayd ikhda ama atontre itantre contre etstan aniga hore yaa nigu soo sheegay oo wax weeyaan wixii lamid ah intayna la fahanteen ma umaleynaya insha allahu tacaala marka waxaan kala saarnay ama aan kala fahanay verbiyada noocyada ay u kala baxaan waxa lagu kala garto premier group waxaan niga yiri waxa lagu kala gartaa waxa lagu gartaa dism group waxa lagu gartaa transom groupna soo jeedaan saasa lagu kala gartaa waan sii wadaynaa insha allah maxay ahayd barnaamijyada soo socda ama casharada kale ee soo socdaan yaan xabxabad idin ku sii sheegi doonaa saa loo conjugayo saa loo sameeyo verbiga markuu premier group yahay saa lagu sameeyana waqtiga jooga ama present waqtiga la yiraahdo passé wixii shalana dhaafay iyo wixii shalay waxaan ahaa marka aad doonaysina Faransiis ku tiraadiyo maanta waxaan yahay marka aad doonaysina Faransiis ku tiraadiyo bari waxaan noqon doonaa ama waxaan noqon doonaa marka aad doonaysina Faransiis ku tiraadiyo ama waa hadlay shalay waxaan ku hadlay hadal caynkaas maanta waxaan ku hadlayaa hadal caynkana barina waxaan ku hadli doonaa hadal caynkaas marka leedid waan sii sameyn doonaa haduu Ilaahay raado insha Allah inta maanta noogu eekaato barnaamijkeena إن شاء الله تعالى أمسكوسنا قنانا برنامج هذا عشر كحيجة لا سيسوهذا أصحابتينا سيشر كريا برنامج كان 10 كان سيشر كريا إن شاء الله تعالى خير مسكوك نهاي إن شاء الله أمسكوسنا قنانا دول هيرات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبسكرايب نحيلو بينا